kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba daawadayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii qubanaha maanta qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka qubanaha maantana waxaa ka mid ah munaasabado lagu maamuusayo 26 juun oo Soomaaliya lagu qabtay madaxweynaha Mareykanka oo amar ku bixiyay in Mareykanka laga mustaafuriyo qof kasta oo sharci darro ku soo galay iyo hab cusub oo geela loo dhaqaaleeyo oo ay iska kaashanayaan reer miyiga iyo reer magaalka gobolka Sool sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha aan ku bilownay magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta 26 Juun oo markii ugu horeysay oo calan Soomaaliyeed oo madax bannaan la taago munaasabada lagu xusayay maalintaasi oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysay ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ka qayb galay ayaa warbixintan noo soo diray konton 8 sano ka hor 26 Juun waxay ahayd markii ugu horeysay oo carrada Soomaaliyeed laga taagay calanka buluuga ah oo dhaxda ku leh xigta shanta gees leh xalay saqdi dhaxa munaasabad lagu xusay 26 Juun ayaa ka dhacday aqalka dawladda hoose Xamar waxaana goobjoog ka ahaa madaxda dawladda Soomaaliya iyo bulsho badan oo lagu casuumay munaasabada caruur roole iyo ciidanka qalabka sida ayaa goobjoog ka ahaa waxaa la qaadaya heesta calanka waxaa loo wada istaagay sare u qaadista heesta calanka iyadoo la xusuusanayo markii ugu horeysay ee 26 Juun laga taagay bartamaha magaalada Hargeysa ee beerta Xurriyadda 12 saqdi dhaxa ay dadku ku gaareen munaasabada iyagoo aan ka muuqan daal iyo dhafar midkoodna waxaad moodaa habeenku inuu yaraa kana duwanaa habeenadii kale hawada Muqdisho mar qura waxaa laga dareemay iftiinka buuleer qof loo ridayay taasoo lagu dabaaldegay habeenka weyn ee bilowga toddobaadka Xurriyadda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambaliyay habeenka weyn ee calanka Soomaaliyeed laga taagay beerta Xurriyadda ee bartamaha Hargeysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed munaasabadan dabaaldega ah ee 26 Juun oo ah 58 guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka Soomaaliya laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah meeshaasna waxay ahayd beerta Xurriyadda ee magaalada Hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo Soomaaliya meel walba joogana farxadii iyo qiiradii iyo Soomaalinimadii iyo wadanimadii iyo reereyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd ee Fawziya halkan ka sheegtay uu tiriyay Cabdullaahi Suldaan Timcadde oo mar alla markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo Soomaali ah uu wax ka yiraahdo taasoo ahayd sareeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar waxay ahayd tix ka turjumaysa dareenka shacabka Soomaaliyeed oo mar walba iyo waqti kasta ay joogaan gumaysi naceebka ama diidan gumaysi madaxweyne Farmaajo ayaa maanta u baxdhigay taalada daljirka Daahsoon ee Muqdisho halkaasoo goobjoog ay ka ahaayeen boqolaal dadweyne ah iyo siyaasiyiin goobta yimid waa maalintii 26 Juun ee ka soo wareegtay 58 sano ka soo wareegtay sanad guuradii aan kaga xorownay gumaysigii Ingiriiska waa maalintii dadka Soomaaliland ama dadkeena waqooyi ay heeryada gumaysiga iska tuureen waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah alxamdulillah maanta waxaan joognaa 58 sano kadib waxaan taaganahay meel aan dib ugu eegi karno oo taariikhdeena aan dib u fiirin karno oo aan wax badan ka baran karno waxa ay tahay xorriyadda waxa ay tahay midnimada waxa ay tahay qarannimada Soomaaliyeed kulligeen haddaan nahay Soomaali meel kasta aan joognana waxaa naga saaran waajibaad gaar ahaan annagu wuxuu naga saaran yahay waajibaad sidii aan ummadda naga dambaysa jiilka naga dambeeya aan uga tagi lahayn taariikh 26 Juun ah bilowga maalmaha Xurriyadda Soomaaliya waxay ku soo beegmaysaa xilli maamulka Soomaaliya wali uu raadinayo madax bannaani oo ka helo Soomaaliyeed inteeda kale
26 juun 27 juun iyo 1 luulyo waa maalmaha xurriyadda Soomaaliya iyadoo gumaysigii Faransiiska dowladda Jabuuti la xurriyadda ka qaadatay 27 juun sanadkii 1977 Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in la mustaafuriyo muhaajiriinta Mareykanka sharci darrada ku soo galay iyadoo arrintan ay ku soo beegmayso xilli ay muhaajiriin tiro badan oo Mareykanka hore ugu sii sugnaa ay sugayeen hanaanka ay sharciga ku heli lahaayeen warbixinta waxay noo diyaarisay wariyahayaga Salaatika Hoog dibadbaxayaal isugu yimid bannaanka goob dadka lagu hayo oo ku taala gobolka xadka ku yaala ee Texas ayaa ka mudaaharaaday in dambiile laga dhigo soo galootiga sifaha aan sharciga ahayn ku soo gala Mareykanka kuwaasi oo badankoodu ka soo cararaya faqri iyo argagixiso xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa sheegay in soo galootiga sharci darrada ku yimaada Mareykanka ay tahay in dacwad lagu soo ogo si loo sugo badqabka muwaadiniinta Mareykanka arrintani waxa ay ahaano ku noqonaysaa dadka sida sharciga waddanka ku soo gala ee kaalintooda sugo codsigoodana gudbiya waxaana taa ka muhiimsan wuxuu dhiirigeliyay in dadka waaweyn iyagoo safar halis badan oo sharci darro ah soo galaya ay haddana carruurtooda hore u soo kaxaystaan Donald Trump ayaa toddobaadkii hore saxiixay amar fulineed lagu joojinayo in la kala kaxeeyo carruurta iyo qoysaskooda hase yeeshee waxa uu sheegay in kuwii sharci darrada ku yimid dalkan la tarxiilayo iyadoo aan la marsiinaynin hannaan sharci ah waxa aynu rabnaa hannaan marka dadku ay sharci darro ku yimaadaan ay ku baxaan qaar ka mid a dadka xuquuqda u dooda ayaa sheegaya waxa uu madaxweynuhu soo jeediyey inaanu dastuuri ahayn balse hanaankan soo galootiga ayaa qaadan kara 3 ilaa 4 sano afhayeenka aqalka cad ayaa isniintii ka digay sii socoshada qoysaska soo galootiga marka ay sugayaan inuu hanaankaasi dhammaado madaxweynuhu waxa uu diiradda saaray ilaalinta xuduudaheena iyo dib u habeynta hanaankeenna socdaalka si looga hortago dhibaatada xadku inay sii xumaato aqalka cad ayaa isniintii xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee koongareeska ku jira ku eedeeyay inay ka soo horjeesteen xal kasta oo ay soo jeediyaan xubnaha xisbiga jamhuuriga oo lagu hagaajinayo hanaankan Trump ayaa sheegay in kuwa ka soo horjeeda ay ku guuldareysteen inay ilaaliyaan xadka isagoo ku canaantay dadka sharci darrada ku soo galayana inay gabaad u yihiin dambiyada ka dhaca Mareykanka hal ruux ayaa geeriyooday 4 kalena way dhaawacmeen kadib rasaas ka dhacday Hong Kong iyadoo dhacdadan ay noqonayso mid naadir ku ah Chinaha laba ka mid ah 4 dhaawaca ay rasaastu ka haleeshay madaxa weerarkan oo maanta oo Salaasaa ka dhacay beerta Quarry Bay ee ku taala bariga Hong Kong ayaa laba ka mid ah dadka uu dhaawacu soo gaaray ahaayeen haween biliiska ayaa saacado kooban kadib gacanta ku soo dhigay haweeney weerarka looga shakiyay iyadoo ku sugan suuq aan ka fogeyn goobta ay rasaastu ka dhacday Hong Kong hubka ayaa aad loo xakameeyaa waxaana lagu tiriyaa inay tahay mid ka mid ah goobaha ugu nabadgelyada badan caalamka dadka ku dhaqan gobolka Seoul ayaa bilaabay hanaan ka duwan kii hore loogu dhaqi jiray geela iyadoo hawshan ay iska kaashanayaan dadka magaalada ku dhaqan iyo waliba dadka reer miyiga waa sida warbixinta ku sheegay wariyahayaga Cabdikariim Olol qaabkan oo ah mid farsamo ahaan ka duwan sidii xoolaha ay u dhaqan jireen dadka geeleyda ayaa waxay sheegayaan inuu yahay mid noloshooda wax ka bedelaya dad badanna shaqo abuur u noqonaya maadaama dhulkii lama degaan noqday saxare abaaru ku bateen in laga faa'iido in xoolihii loo bedelo si cilmiyeysan loogana faa'iido xagga dhaqaalaha iyo xagga mataqaanaa dhaqashada labaduba oo ay xoolihiina ku joogaan dadkuna waxay si weyn u xusuustaan xaaladii ay soo mareen kuwaasoo haatan ka soo kabanaya kuwa xooluhu u hadheen qaabkii hore ay geelana u raaci jireen ayaa waxay ahayd mid aad u adag sida uu sharaxayo mid ka mid ah dadka iyagu geela raacaa 12 maalintii baad wareejinaysaa adigii biyo cabi maysid isagii waa guban yahay waa suudigaas aad wareegaysaan haraad iyo kulayl iyo hanfi iyo waxaas ku leefaya hadeerto markuu doono cabaya biyihii baa isaga yaala halkan ayaa waxa uu keenay in dadka geeleyda ay ka soo iibsadaan gobolada Hiiraan iyo Bay si ay u keenaan gobolka Sool una bilaabaan dhaqasho geel qaabkii hore ka duwan sida uu sharaxaya aqoonyahan ka mid ah kuwa gobolka Sool halkan deegaankan geel ka caana badan oo ka hilib badan oo ka waaweyn sidaad aragtaan badee waa qaab cusub oo hadda geela loo dhaqayo oo dadkii hadda waxay isweydiinayaan halkeeba ugu fiican oo geela laga soo iibinaya ariga laga soo iibinaya
marka waa horumar fiican runtii oo waxaan isleeyahay wax badan bay ka beddelaysaa dhaqankii halkan ka jiray ee ahaa qaabka xoolaha loo dhaqdo. inkastoo saameyn ay ku yeelato abaaraha soo noqnoqda haddana dadka gobolka sool ayaa waxay si weyn u rajeynayaan in nidaamkani uu noqdo mid geeli gobolka sool dib u soo celiya dadkuna ay noqdaan kuwo noloshooda dib ay u soo kabato xoolo dhaqashadina ay noqoto mid aada u wanaagsan. cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood. haatanna daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya wariyahayaga jamaal axmed cismaan. xulka Denmark ayaa xaqiijiyay inuu ka mid noqdo wadamada u soo gudbay wareegga 16aad ee koobka kubadda cagta adduunka kadib markii groupka C kulan ay wada dheeleen xulka dalka Faransiiska iyo Denmark ay ku dhamaatay gool la'aan eber bareeja halka Australia oo ay u baahnayd in ay guul gaarto si Denmarkna looga badiyo iyaduna ay u soo baxdo iyaduba 2 gool waxba loogu awoodroonaaday kadib markii Peru ay la ciyaartay. Faransiiska ayaa hore u xaqiijiyay inuu u soo gudbay wareegga 16aad waxaana inta badan tababaraha kooxda kubadda cagta Faransiiska uu nasiyay ciyaartooydiisa xulashada koowaad u ahayd iyadoo ciyaartooyda kale ee la soo safay badankeed ay muujiyeen ciyaar wanaag isla mar ahaantaasina labada wadan ee Denmark iyo Faransiiska ay gool iska dhalin waayeen. groupkaasi C waxaa kulamada la dheelay ku soo baxay dalalka Faransiiska iyo Denmark oo koowaad iyo labaad ku soo kala baxay halka Faransiiska 7 dhibcood uu ku soo baxay Denmarkna 5 dhibcood. Peru ayaa saddexaad ah oo 3 dhibcood iska leh kadib markii ay ka adkaatay dalka Australia oo hal mar bareejo galay labada mar kalena laga badiyay oo 1 dhibcood iska leh. hore waxa wareegga xiga u soo gudbay dalal ay ka mid yihiin Uruguay oo la dheeli doonta dalkaasi Portugiiska iyo dalka Spain oo isna la dheeli doona wadanka Ruushka. sidoo kale Croatia ayaa soo baxday oo iyadu la ciyaari doonta wadanka Iceland oo doonaysa in ay wareegga 16aad u sii gudubto halka kulanka xiisaha badan uu yahay dalalka Nigeria iyo Argentina waxay u baahan tahay inay badiso si ay u soo gudubto wareegga 16aad iyadoo markaasina sidoo kale u baahan tahay in Croatia ay ka adkaato dalka Iceland. Nigeria waxay u baahan tahay inay barbaro uuna gasho si ay wareegga 16aad ugu sii gudubto. haddii Argentina ay ka gudbi weyso groupkan ee D ay ku jirto waxay noqonaysaa markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2002 in Argentina ay groupka ku harto markaas oo markii ugu dambeysay ay sidaas samaysana ay isku group sidoo kale ahaayeen wadanka Nigeria oo kulanka kaliya oo markaas Argentina ay badisay uu ahaa kulan ay la dheeshay Nigeria kagana adkaatay gool waxyaabaha ku soo kordha kulamadan natiijada sida ay wadamada u soo gudbaan waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena soo socda. xubinta ciyaaraha ee qubanaha maantana waa naga intaa. aad iyo aad ayay u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan. guud ahaana daawadayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenni qubanaha maanta tan iyo intiinu barnaamijka mid lamid ay isugu iman doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.